الله الرحمة سرية جود محمد علي سماتر وحو كل شيء ديجان كيونتوي أو دو مجال كسماية حرونتو قبل كجبادو سنة كمركوها كون سجال بقولكو ويصدقنكي كون سجال بقول أفرتني سديد دي وح مجال ديونتوي وكجبيري ururkii dhalinyarada Soomaaliyeed ee Soomaaliya ee gobonnimadoonka ahaa waxaana uu kaalin firfircoon ka galay xubnihii ugu firfircoonaa ee dhaqdhaqaaqaas waxaana uu horseed ka ahaa banaanbaxyadii abaabulnaa ee ka dhacay gobolka Jubbada Hoose 1949 waxa uu soo wareegay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa uu bishii November ee isla sanadkaas uu ka mid noqday askartii xiisaan ley la oran jiray waxaana uu ka mid noqday qaybta madaafiicda askartaasi tacliintiisii heer sare ay gaartay waxaana uu ku guuleystay imtixaankii sargaalnimo waxaana uu ka mid noqday saraakiil loo diray Talyaaniga sanadkii 1954 markii ay ka soo noqdeen inkastoo uu qabay tababar military haddana waxa uu ka mid noqday ciidamadii booliiska kadib markii la baabi'iyay ciidamadii uu ka tirsanaa waxauna tababar 6 bilood ku galay dugsiga sare ee booliiska ee magaalada Muqdisho tababar kadib Samatar waxaa lagu qoray qaybtii booliiska ee gobolka Banaadir oo waqtigaas taliye ka ahaa Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre oo xiriir soo ka yeesheen aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku beegneed 1960kii waxa uu ka mid noqday xubnihii salka u dhigay aasaaskii ciidankaasi oo lagu xusuusto bishii Maaj ee isla sanadkaas 1960kii oo la furay dugsiga sare ee Xalane waxa uu isagoo saddex xidiglaha ka noqday taliye ku xigeen dagaalkii dhexmaray dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya sanadii 1964 waxa uu abanduulo ka ahaa ciidamadii qaybta waqooyi dagaalkaas oo Samatar lagu guddoonsiiyay bilad geesiya isaga oo ciidamadu hogaaminayay dhabar jab iyo dharbaaxo weyn u geystay ciidamadii xilliga la dagaalamayay waxaana mar kale la guddoonsiiyay bilad maara waxaana loo dalacsiiyay darajada gaashaan la dhexe 22 Oktoobar sanadii 1969kii gaashaan la dhexe Maxamed Cali Samatar Allah u naxariistay wuxuu xilliga ka mid ahaa saraakiishii talada dalka kula wareegtay inqilaab aan dhiig ku daadan oo hogaaminayay Allah u naxariistay madaxweynihii xukuumadii kacaanka ahayd Sareeyo Gaas Maxamed Siyaad Barre 12 bishii Juulaay sanadii 1970kii waxaa loo magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana uu u dalacay darajada Sareeyo Guute sanadkii xigay 1971 waxaa loo magacaabay wasiirkii wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Allah u naxariistay Jeneraal Maxamed Cali Samatar waxaa lagu amaanaa dadaalku ka dhex sameeyay ciidamada dhexdooda waxaana uu soo saaray askar wadaniyad iyo aqoon ay ku dheehan tahay sanadkii 1973 Maxamed Cali Samatar waxa uu u dalacay darajada Sareeyo Gaas sanadkii xigayna waxa uu noqday gudoomiyihii golihii sare ee kacaanka u qaabilsanaa dhinaca nabadgelyada 12 bishii Juulaay sanadii 1976 waxa uu u dalacay Sareeyo Guud waxaana uu xubin ka noqday golihii dhexe ee xisbigii hanti wadaaga gacaanka Soomaaliyeed ahna madaxweyne ku xigeenkii koowaad ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya ahna wasiirkii wasaaradda gaashaandhigga ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya sanadku markuu ahaa 1977 Sareeyo Guud Maxamed Cali Samatar waxa uu ahaa sargaalkii ugu darajada sareeyay ee hogaaminayay dagaalkii ciidamada xoogga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya ay kula galeen ciidamadii hogaaminayay Colonel Mingiste Haile Mariam ee ciidamadii Itoobiya waxaana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka soo hayeen guulo waaweyn wixii ka dambeeyay 5tii bishii Febraayo sanadii 1987 waxaa loo magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee yeelato dawladii kacaanka ahayd waxaana dalka ka dhisay 4 xukuumadood laga soo bilaabo 5tii bishii Febraayo sanadii 1987 ilaa 1tii bishii Febraayo sanadii 1990kii oo ra'iisul wasaare ahaa Allah u naxariistay Jeneraal Maxamed Cali Samatar ayaa noqday mas'uulkii ugu sareeyay ee dawladii kacaanka ee dacwad ka dhan la horgeeyo maxkamad shisheeye dabayaaqadii sanadkii 1990kii waxa uu xilka ku wareejiyay 1tii bishii September sanadii 1990kii ra'iisul wasaare Maxamed Xawaale Madar 26 bishii Janaayo sanadii 1991 ayaa la riday dawladii oo waqtigeedu dheeraa ee soo martay Soomaaliya waxaana muddo ku noolaa dalka Talyaaniga Allah u naxariistay geeridiisana waxa ka tacsiiyay mas'uuliyiinta ugu sareysa dawladda Soomaaliya sida madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ee hadda jirta Cabdinaasir Maxamed telefishinka Cable magaalada Muqdisho